بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo boqortooyada Ingiriiska dhammaanteed dowladda Ingiriiska Prime Minister ugu horeeyo iyo shacbiga Ingiriiska maanta suurtageliyay ilaahay ka sokow in Soomaali oo dhan maamuladii halkaan la isku yeero waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadkii xafladan soo qabanqaabiyey iyo inta ka soo qayb gashay oo waqtigoodii qaaliga ahaa soo siiyey waxaan salaamayaa dhammaan waxgaradka wasiirada gabdhaha mutacalimiintooda iyo waxgaradkooda oo si gaar ah aan salaamaya iyaga iyo raggiya dhammaantiis waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida Soomaalinimada ah ee xafladan caawa loo soo qabanqaabiyey waxaan rabaa xoogaa waxaad moodaa oo ka raali gelinaya dad badan oo mas'uuliyiin ah oo madax maamulo ah madaxweynayaal ah oo meesha fadhiya meeshii ay lahaayeen iyo qaybtii ay ka qaadan lahaayeen hadalkaba la yiri waqtiga ciriiri ah la soo dedejiyay dhowr goorna aan sheegay laakiin aan aysan suurtagelin aniga raali gelinaya madaxweynaha bareeg iyo madaxweynaha galhiira madax kale joogta marka haddii aan ka warramo galmudug waqtigii la aasaasay ilaa iyo maanta caqabado fara badan oo ay la soo kulantay oo dalka guud ahaan ka jira ayada keligeed ayan ahayn wax ku gaara dadkii aasaasay ayaa halkan fadhiya oo sidaa hadda aad ka arkayseen ragga qaar soo istaagay waxaase hubaa sidii loo aasaasay oo loogu kala horreeyey haddana inaan weli loo wada joogin gabdhaha laakiin ay ahaayeen kuwii ugu badnaay oo qorraxda aad u adkaysanayay habeenkii barafku u adkaystay socodka badan ku jiray oo aad u dhibtooday runtii marka hadda waxaa ka garanaysaan gabdhuhu markii wadaniyadda laga hadlaba maantoo dhan waana sabcinaya waana istaagaya laakiin ragga waxaa ka baqay gacmaha inay ka dhaxmoodaan kursiguna ku dhego marka xoogaa waa mahadsanyihin gabdhuhu qaybta ugu wanaagsan galmudug dhismaheedii markaan ka soo warramo waxa weeye dhibaatada ay la kulantay oo ay ugu horreysay aas-aaskeedii iyo maxkamadihii oo mar soo galay galinsoor laakiin waxay ahaataba dadkii dibadda ka imaan lahaa oo jaaliyadda dibadda ahaa oo la rabay maskax iyo dhaqaale iyo caqli inay geeyaanba meeshaasay ku baaqdeen intii ka dambaysayna waa luudaysa laakiin ilaahay meel wanaagsan u gaarsiiyey tacliinta way ka kortay caafimaadka xaggiisana way kortay wax badanna waa u dhiman yihiin idinkayna idinka sugaysaa haddii aan la yidhaahdo home cable iyo fanaaniinta home cable lama xusin anagoo gaalkacay markaan joognahay koobel waxa weeye qayb libaax oo aad iyo aad u wanaagsan ayay naga mudan tahay marka reer London waxa ay ayagu xusin waayeen waa soo xusi doonaan rajayna haddii aan la yidhaahdo fanaaniintana qiimo wanaagsan ay noogu fadhiyaan ayagana waddankoo dhan ay ugu fadhiyaan warka waxaan rajaynaynaa ayagana abaalgudkoodii inkastoo aan la wada gaarsiin karin
oo sidii la rabay aan loo bixi karin in la gaarsiin doono shirarkii dhacay ee Soomaaliya sideedaba waxa burburiyey waxay ahayd cadaalad darradaas 22 sano 21 sano waxa hadda jiray waxay ahaa qabiilkiiba lagu xoogeystay dhibaato fara badan geystay dadkii kala qoqobay marka qolooyin kale ayaa ka faa'iidaystay ama ajnabi ha ahaadaan oo dhammaantood yiri Soomaaliya samafal ayaan u tegaynaa ayaguna kala dana ah qolo walbaahina danteeda markay arki weydo ay leedahay waxa markaa socdaahay yaysan hor u socon khilaafee in ay yimaadaan ciidamo ajnabi ah oo runtii hadda wax qabtay laakiin waxa kalifay ay tahay inaan anagu kala qaybsannahay kala qaybsanaantaasi hadday dhammaatana ayaguna waa baxayaan marka shirarka socdaa ee Soomaaliya loo qabtay muddada dheer soo socday waad ogtihiin dhammaantood 80% cadaalad ma ahayn sababta oo ah dad badan oo lahaa wax ku lahaa ayaa ka maqnaa waxaa moodaa codka socda iyo codkayga inay isla cod eg yihiin marka dad waxaan shirarkii ugu dambeeyey ee qabsoomay dad badan oo Soomaaliyeed oo xaq ku lahaa ayaa ka maqnaa waxa la dhihi karaa waxay tahay in ay ahayd dadka waxyaabaha laga hadlay hadda waxaa ka mid ahaa xagga dastuurka runtii rag iga horreeyeen hadda halkan way ka hadleen wax sahlan ma aha ummadda Soomaaliyeed waa hal jinsi waaye waa hal qabiil waaye marka hal diin waaye dadka sidaas ah oo ayagoo dhan 7 milyan hadda lagu tilmaamay si loo kala qaado oo loo kala qaybiyo way adag tahay marka haddii marka wax badan aad diidid oo aad ka baxdid taa laftirkeeda waxay keenaysaa burburkiiyo sii kordha laakiin inaad caddaysid oo sheegtid ku adkaysatid laakiin si aan loo kala tegin aad dadka wax la qaybsatid waxa la gaarayna ma aha qur'aan wax la bedeli kara waaye ummadda midnimadeeda iyo wadajirkeeda ayayna ka go'daa hadday qaadanayaan federaal iyo haddii aanay
baarlamaan inuu baasgareeyo dadka afti laga qaado xuduudihii la jeexo dadku siday uga howl sahlan maaha horta marka dadka halkan jooga ayaan matalayni galmudug marka sida aad la socotaan hadda wasiiradii hore waxay ka hadashay digil iyo mirifley ka hadashay oo la soo dulmay dhibaatooyin loo geystay dhinacyo badan laga soo bixiyey laakiin ayaga kaliya ma ahayn galmudug inta ay badbaadisay oo galmudug dhex jooga oo aanan marnaba ogolaanin waad ogtihiin dagaalo ka dhacay dhulka Soomaalida ama deegaanadeenna ama meelo ka fog oo dadkeedii ay yimaadeen hadda ugu dambeysay markii aan soo baxayay oo halkan aan soo aadayay agteeda waxaa jiray dhibaato kale oo ka qarxi lahayd agteena dad soo galay gaalkacyo oo la yiri mana joogi karaan mana ka dhoofi karaan kabacdina hadal noo soo diray annagu marka cidna ayagii waa soo wadnay meeshii ay rabeenaa la geeyey fidna inaan ka talinana ma rabnaa nidhi idinkuna inaad fidna geysataan ma rabno cid fidna idin geysatana raalli ka noqomayno waxa weeye waa khaatima raggii madaxdeedii ahaa weeye arrinta cadaalad darrada ah oo la samaynayo ayaa waxay keenaysaa marka in laga gudbo wixii ummaddu ay rabtay haddii marka ummadda laftirkeedii ay aqoonteedii waxgaradkeedii ay dibadda ku nooshahay meeshii difaacaysayna ayan ogoleen inay la qaybsadaan oo la wadaagaan maskax ku kordhiyaan caqli ku kordhiyaan hadda hadala difaacana markaa caqli noqon mayso ogaada waxyaabo aan diiday oo ka baxay waa jiraan laakiin waxaan lahaa dadkan halkan jooga ee hadda sabcinaya ayaa ka waxaan siri ma ku difaaci doonaan hadda ka baxdid marka hadda waa isla keenaynaa haddii alla yidhaahdo ummadduna waxaan u malaynayaa cadaaladii inay baratay hadda oo dulmigii wada diidi doonto magaalada muqdisho station ku yaalla oo booliiska ah ayaa waxaa jiray ninkii madaxda ka ahaa ayaa xaafadaha ka mid ah wuxuu ka soo kaxayn jiray usbuuciiba mar ama labo nimanka dalaaliinta iyo kaariyada iyo kuwaas ah waa xiraan markii lacag ay siiyaan uu sii daayaan arrintii aa ku badatay dadkii maalintii dambe waa diideen way dagaalameen buuqaa ka dhashay guddigii nabadgelyada gobolka banaadir ayaa soo fariistay marka ninkii sarkaalka ahaana waa la soo fariisiyey wuxuu yidhi waxaan idinka soo dhaafay ciidanka markuu dirayo uu leeyahay dadka ha la ii soo qabto ayuu wuxuu dhihi jiray dibidii ii soo kaxay waa la keenaa lacagtuu ka qaadaa maalintii dambe guddigii nabadgelyada ayaa fadhiistay ninkii sarkaalka ahaana waa joogay mid ka mid ah oo hadda ragga badankiisa waa dhinteene allah u naxariistee ayaa wuxuu yidhi dibidii geesaa yeelatuu yidhi macnaheed waa garanaysaa dibidii geesaa yeelatay waxa weeye tuugadii iyo lacagtii laga qaadi jiray iyo dulmigii mar dambe ma yeelayaan waa micnaheeda marka idinkana waxaan u malaynayaa inaad geesihii yeelateen oo waddankii tegi doontaan oo cadaalad darrada iyo waxa la dagaalami doontaan haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaanka Soomaaliya oo raba in la dhiso
255 waxaa cadaaladu tahay waa la is yaqaanaa dadka tirada waa la is ogyahay aqoonta waa la is garanayaa nabadoonnada samadoonnada suldaanada waa la yaqaanaa gabdhaha horta tiradoodii ayagana waa la siiyey tiraa loo jaray oo markaan waxa weeye dulmi badan tirsamayaan ay la tahay inkastoo meeshii la rabay aan la gaarsiinin waxaa la rabaa inay noqdaan dadkaas wax soo xulaya oo wax lagala tashanayo dadkii xaqa u lahaa nin aan nabadoon ahayn oo magac nabadoon sheegta oo magaalo inta tegay magaalo madax lacag lagu siiyo oo afhayeen laga dhigtay oo idaacadaha ka hadlaya oo dadka markaa jooga difaacaya ma soo xuli kara nabadoon cadaaladda iyo dowladnimada iyo wanaaguna haddaysan ka imaanin shacbiga laftirkiisa oo aysan difaacanna shakhsiyaad ma difaaci karaan arrintaas xisaabta ha lagu daro maanta Soomaaliya waxay u socotaa dariiq wanaagsan dariiqaas haddii sida saxda ahayd oo cadaaladda ahayd oo wanaagga ahayd laga leexiyana hadda sidii la sheegay waa lagu gubanayaa dabkaasaa uu lagu jirayaa weligiis haddii sidii la rabay la aadiyana ilaahay idankiisa sida ay hadda ku socoto waxa weeye si wanaagsan ragga halkan fadhiya iyo gabdhaha dalka idinka haddaadnaan dhisin oo aydnaan tegin oo aydnaan cadaaladda iyo aqoonta iyo khibradda idinku jirta oo dibadaha aad ka qaadateen iyo tii hore aad u haysan jirteenba haddaadnaan ku kaalmeen dalkii dad ajnabiya wax idin dhisimayaan ogaada waana la sitaa waana loo taliyaa waana loo sheegaa meeshii la rabaana la geeyaa kabacdina waa la saxiixaa laakiin haddaad intiinaan diyaar tihiin ma imaanayso waxaasi cadaalad darrada waxay ku sokirtaa waxaa weeye nin raba inuu wax dulmo iyo nin ama qof la dulmay oo raba dulmiga inuu ka argoosto labadaba waxaa la rabaa marka in laga tago sida Ibraahim Xabeeb uu sheegay in la yiraahdo wixii tagay waa tageen qofkii wax gaaray waa gaareen laakiin hadda hal isbadbaadiyo aan midnimada iyo Soomaalinimada iyo cadaaladda aan ka qaadano halka wax yar oo la sahlanayo ayaa waxay keenayaan wax weyn caawa hadda waxaan ka hadlayay sida brotokoolka halkan u xumaaday xalayna meeshii aan fadhinay xafladii kale ayaduna sidaa iyo si ka daran ugu sii xumaaday marka hadduu marka xumaado kollay meeshaan fadhiyey waa joogay waan arkayay waxa dad kalena waa joogeen marka haddii qofna xanaa uu yiraahdo waxaasi waxba kama jiraan la sameeyey wanaagna ma dhicin hana lagu kala taga hadduu yiraahdo waa dhibaato weeye marka kollay wixii aan arkay xalay waa dulqaad ayaan ku dhammaysanay si madaxweynihii prime ministerkii ra-iisul baarlamaankii madaxdii dowlad goboleedyada ummaddii shacbigii joogta haddaad adigu orod bilowdid waa dhibaato weeye marka midkii haddeer haddii dadka xumaanayana waxaan leeyahay anaa ka raali gelinaya ha raalli ahaadaan dadkii loo gafay dadkii aan meeshii munaasibkooda la marsiinin
هكذا هذا هذه مكان رئيس سحرنا أو كسرنا طريقة حلاشة قف أن قفين هرت مجلو أن إلهي لهين عدالتنا إلهي بالك ودهلي كرا لكن دلال بدن أيانا لقربا حدي وحاس آت سميسر لقا قبتنا أولو بلا بركجو إنا تكجو تدوي بك هذا شركي قدام بي شكي بدن على موجناي هدي هناك استلق جارو يهدوه وحن كسو بحي لهايين با كلمة عربية وحاجة تستلي هذا حبر على الورق خد ورقة لطول صاري وحابي أنسو قارين حتى عما بدان وآن كاسي وحاويش شعبي كسيدة أوه ربو سكور عسيه عدد وناكا أي وحور بطنوبة معنا يا لغاية دولته نجوا وينا أو اسمه أو حوك لها أيا كعدون شعبي لوجده أو كتجي أو قادون لوجده ما كان يوصل كنا وأسئلة لنا هو إنه نرى كحيايو مرة نهرس كاجي تجينا أبدي تيجي يا تذكر علي حاج يوسف حاجي هذا وانا قلت لي وقتها ووالد كي وقتها سجع رنا أنتي سيدو شيعينا قولي أنا مركع تشي قولي جوبي إلا يو حتى أنا إسرائيلي كتو الدنيا تذكر أي كلام طيب وحيابها قاركون وتعطي هذا مثلا قلمدو dadka hadlayay wasiirada ah iyo inta aan hadlinba iyo in maqan iyo sidii hadda Maryam Mursala sheegayay deegaanka galmudug la yiraahdo aad u balaariya waxa way hadii la yiraahdo 4.5 ka xubnaha ka maqnaadaan haday rabaan xubna yar mid kasta xubin yar ka maqnaada laakiin 4.5 ka waa ku dhan yihiin odaygu marka wuxuu jeclaa wax wanaag ah oo ah in nabadda iyo midnimada deegaankaas laga shaqeeyo asaguna wuxuu yidhi waxaan noqonayaa oo ka mid noqonayaa askartii la shaqaynaysay laakiin waxa weeye haddii ragga iyo dumarka meesha jooga aysan nala shaqaynayn kulligood shakhsiyaad kaliya wax ma qaban karayaan shirkiga garow waxaa ku jirta oo ah qoraalka ka mid ahayd waxaa naga dhiman in la dhammaystiro oo ay gacanna ka geysanayaan waayo deegaanka shabaab badanaa ku jira burcad badeedaa ku jirta marka in si fiican maamulada jira waxa jira kulli dadku inay meel iskugu wada yimaadaan oo wax wada yeeshaan oo hal noqdaan wax ka wanaagsani ma jiraan arrintaa marka waxaa ballan ah awalna waa ka shaqaynay haddana waa ka shaqaynaynaa laakiin idinka intiina kale ma ballan qaadaysaan inaad nagala shaqaynaysaan gogashaas waay gabdhaha aad u badan tahay ayaga waa weli marka cali xaaji yuusuf hadalkiisii idinkaan qaadan miya mala qaadatay marka hadduwaaye wallaahi waa tahay marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo horta cadaaladaan rabnaa anigu markaan meeshaan imaado ama gudaha joogo si aadaha la ii soo wacaa ama wax la ii weydiiyaa
maxaasaa loo yeeli waaye waxa ma yeesheen ma yeelaysaan waxaasaa la rabaa haddana gacanta inay taagaan oo yidhahdaan gacanaan ka geysanaynaa waa tegaynaa waa diidan yihiin sooma ma soconayso marka isma keenayso waxaa waaye waa codsi waaye marka cadaalad darrada aad sheegteen waxaa looga hortegi karaa annagoo iskugu wada tagna meesha oo caqliga la geeyo aqoonta la geeyo xoolaha la geeyo dadka deegaanka deganna waxay ka wada imaan doonaan intiina meesha fadhisa iyo inta naga maqan marka cadaaladda haddii adiga aadan kow ka noqon qofka kalena ma dhihi kartid cadaalad sameey waayo adaaba ka maqani hadalkii haddii aan ku dheeraaday iga raalli ahaada mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa waxaana idiin ballan qaadayaa haddii idinka xaggiinna ay ka timaado in wax aydnaan raalli ka ahayn soomaalinimada ku wanaagsanayn cadaaladda aan ku wanaagsanayn inaanan qaadin oo haddii aad igu dhiirigelisaan haddii la saxiixi tego waa ka baxayaa markaa ka bacdi marka waxaan leeyahay dhammaan intii ka soo qayb gashay inta soomaalinimadu ku weyn tahay inta soomaalinimada jecel inta u taagan mar walba horumarka iyo wanaagga iyo midnimada dadku waxbay dhisteen qaarkood qaarka aan waxba dhisan inay degdeg iskugu tagaan wax samaystaan isku tanaasulaan ayaa ilaahay ka rajaynayaa horguudna aad ka wada noqotaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka reer galmudug ee soo abaabula xafladda quruxda badan leh fanaaniinta loo heystay dadweynaha ka soo qayb galay dhammaan wufuudda iyo marti sharafta ayaan jeclahay inaan u mahad celiyo intaa dabadeed waxaan rabaa in yar inaan gadaal ugu laabto laba marti ah la magacaabay oo nooga yimid North America Maxamed Ducaale Kaahiye iyo Cabdimadoobe waxaan leeyahay welcome to London waxay ahaayeen labada nin reer London oo niman qaali ah galmudugna ku culus dadkuna isma bartaan haddaysan isu martiin haddaynu galmudugnahay North America labada nin ayaa nagu soo dhaweeyey caawana ma aynaan dareemin mana aanaan u sabcin waxaan rabaa inaa istaagtaan oo u sabcisaan labada qofood Maxamed Ducaale waxaan ku leeyahay soo dhaweynta North America galmudug ku soo dhaweysa caawa ma aadan helin aniga ayaa ka xaal siinaya waxaan ku leeyahay shacabkaagu waa ku jecel yahay waad ka dhalatay galmudug ku soo dhawow London intaa dabadeed waxaad moodaa inaan daalnay fanaaniintii waqti leeyihiin marka waxaan rabaa inaan soo gaabiyo hadalkayga laba qodob oo muhiimana aan dadka xasuusiyo waxaa jira mar kasta waxaa laga hadlaa wixii markaa cusub siyaasadda ama sagxadda ku cusub waad ogtihiin Soomaali UK ayaa loogu qabtay shir la leeyahay dhammaan ha laga soo qayb galo Soomaali intay tahaba maamul goboleedadii ka soo qayb galay waxaa ku jira oo maanta soo ifbaxday inuu bilowday tartan maamul goboleed iyo goboleentaba dastuurku wuxuu leeyahay waxaa noqon kara maamul goboleed laba gobol iyo intii ka badan haddaba waxaa jirta
hadda maamul goboleedyada waxaa ku soo kordhay gobollo cusub oo hadda xoroobay sida Baydhabo iyo Boqol Hiiraan way xoroobeen tartankayna soo galayaan waxaa kaleeto ii weheliyay inaan wax yar carbaabo ma rabo khudbadaydan ku soo talagal caawa waqti uma aan haysto waxaan leeyahay reer Galmudug waa inay u istaagaan ilaa iyo Kismaayo waa inay u istaagaan inay hormood ka noqdaan in la mideeyo waxaa jira laba gobol oo jecel inay gobolladoo dhan cunaan taana ma yeelayno ma yaana leenahay waxaan rabaa anigoo taageersan shirkii ka soo baxay Garowe ee ka dastuurka qabyada lagu dhameystirayay inaan xasuusiyo gabdhaheena Soomaaliyeed in ragana uu noo abaalgudeen halgankii aan soo marnay muxuu ahaa saan u badbaadinay caruurtii dhallaankii saan u badbaadinay ugu dhabar adeegnay xornimada inay noo ogolaadeen 100%. waxaan leenahay ragyow waad mahadsantihiin laakiin waa taasoo laga dhabeeyo oo beel kasta markii loo diro gabar aan raggu isi soo taagin waxaan leeyahay gabdhaha Galmudug anigoo xusaya Soomaaliya markii aan tagay inaan isi soo aragnay gabdhaha Digil iyo Miriflaan isi soo aragnay waxaan is aragnay gabadha xildhibaanada Fawsiyo waxaan ku ballanay gabdhaha Galmudug inay martigelayaan gabdhaha Digil iyo Miriflaan soo arkaan walaalnimada aan Digil iyo Miriflaan u hayno dadkoodana aan ugu soo dhaweynay Mudug Gaalkacyo haddana ay ka mahad celisay xildhibaanadu haddaba waxaan leeyahay gabdhaha iyaga waxaan kaga baahan yahay xildhibaannimadaas noo soo socota iyo maamulka noo soo socda inaan xagsano aan ku diriirin sida ay ugu dagaalamaan raggu inay ka muuqato dawlad wanaagga soo socota haddii gabdhihii 100% yihiin in maamul wanaag fara badan uu soo baxo laguna mahadiyo dumarka Soomaaliyeed oo waligiiba wax isu diidin waxaan rabaa warka macaankiisa iyo qiimaha uu leeyahay inaan u dhaafo madaxweynahayga oo noo sheegi doono waxyaalaha ugu badan siyaasadda ugu xiiso badan anigoo nasiib darro ay ku noqotay inaan khudbadayda soo wada koobi karin waxaan leeyahay Galmudug ha noolaato waxaan leeyahay Soomaaliya ha israacdo gabdhayo waxaan noo ballama meeshii uu sheegay Texas Muqdisho iyo samarka inaan isugu tagnaa noo ballama wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka salaamayaa dhammaan dadkii sharafta halkaan isugu timid ay ugu horeeyaan dumarka odayaasha waxgaradka aqoon-yahaniinta waxaan kaloo si gaara u salaamayaa halkaan xildhibaanada dowladda federaalka ku-meel gaarka mudane xabeeb iyo mudane shido iyadoo leeyahay waqtigu waa yar yahay waxaan rabaa inaan laba galmo halkaan ka idhaahdo waxaan kaloo doonaya halkaan ka salaamaya wakiilka USA ee Galmudug Mr. Maxamuud Caali Kaahiye waxaan ku salaamayaa salaanta boqolkiiba 40 Quraanka Kariimka waxaan doonayaa caawin halkan ka idhaahdo laba qodob anaan ku dheeraanaynin maadaama waqtigu yar yahay baa la yidhi qodobka ugu horeeya waxaan halkan caawa isugu nimid inaan u dabaaldegno maaragtay xaflad aan ku soo dhaweynayno madaxweynihii Galmudug mudane Maxamed Axmed Caalin sidaad la socotaan maanta Galmudug
waxay ka mid tahay labada stakeholder oo ay aqoonsan yihiin beesha caalamka galmudug sida la socotaan maanta waxaa isugu yimid ama ku wada jira kabineetka galmudug intaas oo wasiirra oo ay matalaan beelo kala duwan beelahaas oo ay dhammaantood u wada badan yihiin ummadda Soomaaliyeed beelaha ay ka kooban yihiin waxaan doonayaa inaan maaragtay halkaan ka sheegno in galmudug ay u noqoto tusaale meeshii ay usaga istaagi lahayd lugaha ummadda Soomaaliyeed ay halkay ka hana qaadi lahayd inay u noqoto saldhig ayaan doonaya insha Allah sidaa la socotaan dhibaatooyinka maanta gobollada dhexe haysta ama maamul kasta haysto wuxuu u badan yahay xaggii baahida haddaan ka yidhaahdo laba badan dhanka baahida baahitirka ummadda waa horumarinta dalka meel ay baahi ka jirto nabadi kama jirto si nabadda galmudug loo xoojiyo waa in laga hortagaa waxna laga qabtaa baahida ummadda haddii baahida dadka badato ismaqal ma jirayo haddii ismaqal la waayana kala dambayn ma jirto haddii kala dambayn ismaqal la waayana waxaa baaba'aysa kalsoonidii iyo howlfulintii iyo waxqabadkii horumarka dadka dowladnimadiisa ibrilkaabad ayuu ku dhacaa sidaa daraaddeed qof kasta wuxuu mudan yahay qiimayn iyo tixgelin qofkii shaqaynaya iyo qofka loo shaqaynayaba qof kasta oo bulshada ka tirsan waxna waa qaban karaa waxna waa qarribi karaa intuusan qofka wax qarribin waa in laga hortagaa oo dhibaatadiisa la xalliyaa ummadda iskaashiga iyo ismaqalka ayuu dad dhisan taasina waxay ku imaan kartaa in qof kasta loo tababaro siduu wax u qabsan lahaa shaqana u abuuran lahaa nabaddiisa isu wadkeeda waxaan doonayaa walaalayaal in ummadda ay isku tashato waxaa muhiim ah in dadku isku tashadaan oo ay gaaraan madax bannaani dhaqaale oo aan isku hadlaynin ummad kale oo shisheeyo gacantiisa maanta waxaa ummaddeena maskaxdeeda ku jira in ay isku hadleeyaan oo aan wax ka sugaan dowlado shisheeye iyo kaalmo dibadeed gacan hoosina meela laguma gaaro isku hadlayn gacan kalena waxaa ku lumaysa danta ummadda kalsoonideeda awooddeeda iyo dadnimadeeda iyo sharafteeda ayaa ku lumaysa dibudhaca ummaddu waxay guul u tahay hay-adaha wax qaybiya oo aad la socotaan inay maaragtay ay maanta ay inta Soomaaliya heerka ay gaarsiiyeen haddii ay ummad isku filaato halkaa waxaa ka baxaya danaha hay-adaha gargaarka keena sidaa daraaddeed waa in markasta laga feejignaadaa talooyinka qaarkood ay hay-adahaas bixinayaan waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa anigoo u daynaya inta kale madaxweyne caalin in maaragtay caawa halkaan marna waa ii farxad ba ii ahayd marna waxay ii ahayd maaragtay inaan sawirto masawir kale waxaa la ii sheegay caawa in 3 xafladood oo ay Soomaali leedahay London ka jirto xafladii Puntland xafladii Somaliland iyo xafladan galmudug mar waxaan sawirtay qof waxyihiisa ama jirkiisa uu mid meel aadayo xanuun intee laga ayuu ka abuuri karaa aad bay arrintaas caawa igu reebtay maaragtay wallaahi maaragtay adiga waxaan ka goyn karin qalbigayga markii la ii sheegay 3 xafladood oo 3 maamul oo kala duwan halkaan lagu qabanay caawa waxaan hadalkay ku soo gunaanadayaa insha allahu tacaala Soomaali ha israaco Soomaali ha midowdo Soomaali qalbigeeda Allah isku dumo insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi salaan kadib waxa ay tahay sharaf inaan macaaw halkan idinkala qayb galo xafladan quruxda badan
aan ii muuqato wajiyo badan oo aan aqaano iyo dad badan oo asxaabtayda ina farax gelinayso runtii sida wanaagsan ee loo soo agaasimay waxaan rabaa inaan wax yar ka ilaahdo doorka iyo kaalinta galmudug iyo tusaalaha wanaagsan ay u noqotay ama ay u noqonayso mustaqbalka gobollada kale ee la sheegay inay hadda tahay inay ka baxeen gacantii dadkii haystay cadowga ku ahaa midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya waxaa runtii sharaf weyn u ah madaxweyne Caalin oo marar badan aan fursad u helay inaan ka sheekaysanay sida uu rabo inuu ugu noqdo tusaale wanaagsan iyo hogaamintiisa wanaagsan oo sharafta leh waxaa kaloo aan rabaa inaad sidaad ogtihiin waatii mar dhow laga sheekeynayay rajada dadka Soomaaliyeed iyo sida ay ahayd 3 maalmood ka hor fikradda la qabay iyo maanta fikradda la qabo oo ah in dadka Soomaaliyeed soo baxay ama bariwaa cusub oo ah qarannimo dowladnimo dadnimo iyo sharafnimo soo cishtaan si arrintan loo gaaro kuma imaanayso oo kaliya in la sheego oo la yiraahdo dowladnimo loo baahan yahay qarannimo la rabo wadaniyad baa la rabo waxa loo baahan yahay waa dad u guntada inay xilkaas dowladnimada iyo qiimaha iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed dib u soo celiyaan siyaasiyiinta laga sugayo oo looga fadhiyo waxaa ka mid ah madaxweyne Caalin oo in badan runtii laga hadlay arrintaas tusaale wanaagsan oo u noqday tanaasulka iyo dulqaadka waayo waxaan ognahay xaaladda hadda lagu jiro sida xildhibaanku ku sheekeeyay wararkii xabeeb inay tahay waqtigii loo baahnaa in la isku dulqaato waqtiga loo baahnaa in la isku tanaasulo waqtiga loo baahnaa in midnimo la muujiyo si xaaladdan adag aan uga baxno waayo haddii aanan dhaqankeenna iyo aragtideenna iyo sida aan u maaraynayno nolosheenna aanan wax ka bedelin xaaladeenna waxba iskama bedelayaan sidaa daraaddeed colaadii nacaybkii qabyaaladii dhibaatadii iyo xinkii iyo mashaakilkii ummadda muddo badan ugu dhexayay in wax laga bedelo oo siyaasiyiintu ay noqdaan dad si mas'uuliyad leh oo ilaahay uga baqaya dadkooda oo dadka mustaqbalkooda uga baqaya oo aayaha ilmahooda iyo ummadda soo socota ka fikiraya inay u fikiraan in loo baahan yahay sidaas ayaan ka rajaynaynaa madaxda kale gobollada kale hadda soo socda ee ka baxaya gacanta maaragtay dadkii dowladiidka ah ee u baxaya in nabad la helo inay iyaguna u dhaqmaan tusaale wanaagsan ay u noqdaan waxaan rabaa inaan adigoo ku hadlayo magaca xukuumadda kumeelgaarka ee federaalka iyo fikradda aan ka qabno in aan taageersannahay ayna tahay waajibaadkeennii shaqo ee la hor yaalla muddada 1 sano ee kumeelgaarka ahayd ee looga baxayo marxaladda kumeelgaarka in la xoojiyo la dhiso lana taabageliyo in maamullada ama gobolladu ay dhismaan si cadaaladda ay uga soo bilaabato meesha hoose sidaa daraaddeed waxaan soo dhaweynaynaa taageeraynaa in maamulku shacabku leeyahay oo dadku leeyahay oo dadku ka qayb galaan oo dhalinyaradu ka qayb gasho in la soo bandhigo oo halkaana ay ka dhalato dowlad wanaag ku dhisan cadaalad iyo sinaan iyo dadka oo si xalaal u qaybsada awoodda dowladnimada marka mar rabo inaan khudbadda siyaasadeed u galo oo madaxweynaha noo jooga waxaan codsaday in kelimadeeda lasoo hormariyo anigoo ka xildaaranaya inaan waqtigiisa kale la qaadan waxaan idinku hambalyaynayaa galmudug sida sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen waa maaragtay ku mahadsantihiin gaar ahaan waxaan salaamayaa gabdhaha oo runtii muujiyay dareen wadaniyadnimo waxaan keliya idinkula dardaarmayaa dhammaan rubajoogta reer galmudug wadankii idinkaa u soo maqan dalkii idinkaa dibad u soo tegay wax u bartay u shaqeeyey maskaxda iyo fikradda iyo talada iyo waayo-aragnimada aad dhaxasheen waa inaad dalkii dib u celisaan dalkii dib uma dhismi kara haddaanan maskaxdiinni iyo garaadkiinni iyo dhaqaalihiinni iyo waqtigiinni aadan gelin inta badan waxaa hadda ka dhacaya magaalada muqdisho iyo dalka inta ka xorowday waxaa qayb weyn ka ah dadka qurbajoog magacyo badan ha loo bixiyo sida la rabo ha loogu yeero laakiin wax badan oo isbeddelka dhacay waxaa ka mid keenay sababay dadka dalka dib ugu noqday marka waxaad u barateen
xilbaa idinka saaran hal habeenoo loo xafladeeya keliya waxaa matali doonto waxaan ka codsanayaa dhallinyarada haweenka odayaasha waxgaradka ah dalku waa ii baahan yahay ha loogu noqdo deegaankii iyo gobolladii laga yimid gaar ahaan gobolka hadda aan maanta gubashiisa halkaa u fadhina ee dowlad goboleedka puntland soo dhiganaa lahaada galmudug xal oo dhan baa magacyo qaybinay marka waa laga yaabaa isku qaldaya magacyada galmudug in aad ula noqotaan maskaxdiina waayaaragnimadiina guul baa idiin rajeynayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya galmudug aad baad mahadsanti waan isalaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boqol iyo toban iyo afarta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan idhaahdo madaxweynaha galmudug oo xafladan wanaagga badan waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan salaan sharaf leh oo salaan qarameed ah u gudbiyo madaxweynaha galmudug madaxweyne caalim oo xafladan sharafta leh halka loo dhigay waxaan rabaa inaan idhaahdo xaqiiqada runta ah dadka Soomaaliyeed dhammaantood inaan u soo jeediyo caawa in sida xaqiiqadu tahay waa la ogyahay Soomaaliya meesha ay marayso waxa la soo maray dhibaato aan laga sheekayn karin marka qarannimada Soomaaliya in loo wada istaago oo aysan mar dambe biyadeys yeelan waxaan ogsoonahay gobollada madaxweyne caalin uu ka soo jeedo sida galmudug ka soo bilaaw ilaa magaalada muqdisho inay yihiin gobollada ugu dhibaatada badan Soomaaliya maanta waxaan rabaa inaan idhaahdo ragga halka ka muuqda oo odayaashii iyo waxgaradkii ee Soomaaliyeed ah iyo gabdhaha sidoo kale halka ka muuqda wuxuu yidhi faanole faray kama qurna waxaa loo baahan yahay in gobolladii dhexe ee Soomaaliya oo xaqiiqada runta ah maanta aad ogtiin waxa ay ku sugan yihiin marka laga reebo magaalada muqdisho oo hadda xorowday iyo galmudug waxaa xoroway gobolka hiiraan sidoo kale waxaan u hambaliyayna magaalada gobolka baay iyo barkool iyo xorow waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan kuu soo jeediyo laba kelmadood oo hadda ka hor in horay halka ka hadlay oo soo jeediyay qayb ka mid ah waxaa loo baahan yahay inaan u wada guntanno in dhammaan gobollada aan maamulku ka dhisnayn ee ka bilaabata gobollada dhexe ilaa iyo gobollada koonfureed inay ka qayb galaan talada dalka maamul rasmiyana laga wada dhiso macquul ma noqonayso dalka dastuurkii lagu dhaqi lahay inay ka maqnaato ugu yaraan ilaa 9 gobol iyo in ka badan waxaa muhiima dastuurka waddanka lagu dhaqayo waxaa muhiima talada dalka la goynayo waxay leeyihiin dadka halka fadhiya iyo in badan oo Soomaaliyiin caalin kaalintaas asiga ayay dhankiisa ka hirgeli karaysaa ee waa inuu istaaga waxaan rabaa inaan soo koobo hadalkayga waxaan ilaahay ka rajaynayaa Soomaaliya inay hesho hal jaaliyad oo London oo kale bedesha inay hesho hal safaarad oo London oo kale bedesha inay dhammaato koox iyo gobol gaar ah oo loo gudbo qaran Soomaaliyeed
iyo magac Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa shirkii London ka dhacay oo shir taariikhi ahaa oo Soomaali loo dhigay oo dawladda Ingiriiska oo ugu fac weyn dawladaha caalamka ay u dhigtay gobashaas waxaad garanaysaan meel dambe oo caalamka oo loo durqaahi ma dhinna waa inaan darfaha qabanaa qarannimadaas siday ku istaagi lahayd waxay ku istaagi kartaa in laga cadaalad faro maamulka Soomaali ay samaysanayso waxay ku istaagaysaa in laga cadaalad faro dadka Soomaaliyeed sharciga ay samaysanayaan waxaan soo jeedinayaa dhammaanteen inaan u istaagno inaan aadno dalkii Soomaaliya inta bixi karta oo wax laga dhiso qarankii Soomaaliyeed inuusan biyadays dambe yeelan waxaa muhiima dib u heshiisiinta dalka oo dhan in la isu tanasulo wixii la soo maray 20 sano oo halaag ahaa aan dib loo xusuusan sida aad la socotaan dowladda South Africa markii muddo dheer Nelson Mandela 20 sano u xidhnaa markii uu soo baxay waxay yidhi ma waxaan dooranaa inaan qaran noqono mase waa aqoonsanaa waxaan u soo jeedina Soomaali maanta inay qaran noqoto inay u tanasusho oo argooshi dambe ay iska dayso haddii aanan qarannimo u tanasulayn aniga gobolka hiiraan ka soo jeedaa shirkii dawlada kama mid ahayn waxaan dhihi lahaa ha socoto 20 sano oo kale dagaalka laakiin qarankaan u tanasulaynaa Soomaalida waa inay sharciga wadaysta waxaan rabnaa walaalayaal dhammaan intaan isqabsano annaga oo Soomaaliya inaan u tanasulno qarannimada Soomaaliyeed cadaaladda Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo ha israacdo waana mahadsantihiin هذه واسعة وكمان فعلا نسوي وتفوقها ونحن الناس فعلا وحضر الأسوق إذا أن نسعني بنعنا فنانة بنعنا وطنيرة بنعنا الوقت تأذنك وحسوا ونحسن أنا فنانين كرتي قلبهم هذا الوقت أحسن وشبر أقول سؤالي كوسو أسمع خير في الشام فكمان ولا بيقولوا في استقبال وقت ما أتكبر عليه ما يبقى هنا وإحنا راهون يقول هذا حق أمة تلاش عن مرايات ما يهمه وحوي ذلك ديوانتا تعالى odayaasha nadu marka waxa la rabaa waa arag waxaan soo aragnay inaan qalliinada wax u sheegno
gobollada laga hadlo ayaamaha waxaa batay waxa la yidhaaho federazione maxaa tahay federazione waxa weeye waxaa la yidhaha shaklu min ashkaali lxukm waa nooc ka mida noocyada la ysku xukumo oo dal lagu hogaamiyo dowladda dhexe iyo dowladda yaroo gobolka ka tirsan yaa awoodda qaybsada oo midba xilleeda waxaa jira qola aan federasyonaha inuu toos dowladda dhexe ugu xidho annaga soomaali haddaan nahay ayadoo la hikaadin oo kutubta loo noqo toorada la aadin oo maxay ku timid la dhihin yaa waxaa la leeyahay muxuu ahaa waxaa noqonay federasyon ra'yigaasaan caawa halkaas ka sheegi doono inbagaadi markii la isugu tegayna waa qalo federasyona waa ka soo horjeeday sababtii aan uga soo horjeedin waa idiin sheegay waxa weeye federasyonu asalkiisu wuxuu ku bilowday dad aan waxba isu gelin dhul ka dhaxeeyo oo tashado iyo wadanaheena isaga ku ilaashanaa dowlad dhexe aan samaysano muxuu ahaa haddaad tusaale haddaan u soo qaato dowladda ruushka soo qaado 21 reer waa federasyone raasiya 21 dalbay ka kooban tahay iyo 10 kale oo gobol iyo muxuu ahaa okrug waxay yidhaaheen iyo dowladda yidhaah muxuu ahaa maxaafad waxaasoo dhan qolo wax isu ah dhalasho ku dhigta qolo walba marka waxaa la dhowraa dhaqankoodii afka dowladda dhexena wuxuu yahay afka muxuu ahaa dalkoo dhan qolo walba kooday wax ku bartaan waxa annaga markaan soomaalida laleeyahay federasyona la qaadanaya waa qabiil bay ku soo baxaysaa marka qabiilkii ma la dirinaynay mase maryaan u gelinaynay saraawiin baan arrintaa isweydiin bay waxa weeye waa la soo celcelinaya dadka soo celinayo qasbayo waxaa jira maamaayo carbeedoo dhahaysa ana ma'il wa anta ta'id fa kayfa natafid haddaan af soomaaliyeyno waxa weeye macnaheedu war aniguna dulqaadyana adiguna daandaansibadnaa tahay see ku heshiinay dowladu gobol ma amri karo gobol kale inuu federasyono qaato saas darteed waxaan iska hilmaamay inaan sheego oday ka tirsan dadka galmudug baan ahay mas-uuliyadduna waa shaqsi wixii aan meeshaas ka idaa cidday dhibaan anaga ii soo raacanaysa waxaa jira fadhigii halkaan ahaa oo la qabtay waxaa la ii sheegay gobolladii waqooyi iyo gobolladii koonfureed ii sheeka furantay in la wada hadla awal waa la qoloba meel bay ku cabirsanayeen muddaan ka soo maqnay dalkii waa la hiloobay marka mararka qaarkood nasiib wanaag hadda qof iska socdoo hadla ayaad arkaysaa waxaa la moodayaa inuu taleefonkii ayaamahan la sigtay ku hadlaayo laakiin waxaa dhici karta inuu keligiis isla hadlaayo isagoo fikir marka ceebtu waa qarsoon waxa weeye anoo socda yaan waxaan istusay hargeysa iyo muxuu ahaa taleex dowladdii lagu dhisay waxaan idhi qoladaas soomaalinood awalba midnimadii ayagaa ka shaqeeyey oo xamar yimid isagoo ayagoo 4 beri ka horreeyeen talow inay dadkii isku soo celiyaan bay ku tashadeenoo muxuu ahaa taleex ama khaatumana waxaa loo diray xamar oo waxaa la yidhi war kuwaan dhaqaaqila soo jiida hargeysana waxaa la yidhi dhallinyaradii dhalatay ee waaye baryasamaadkii aan ka warqabina maqashay waa la dirno waa la kala tegey aad wax ka soo dhaadhacsiine adinkuna kuwaa soo jiida anaguna soo jiida aan dhexda soo gala anaa iska dhaadhacsiiyey anoo saas iska dhaadhacsiiyey yaa dagaalacay markaasaa ku hankaagay fikradii aan waday waxaan labadaas meelood taleex iyo hargeysale
walaalayaal darsi waxaan noogu filan koonfurta Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday ee intaa dagaal ka leexan kartaa iyo islayn halooda hadlo meelna waxa la dhigay haddaan Hargeysa si gaar Hargeysa waxa weeye magaalada madaxdii gobollada marka qolo gaara oo la hadli maayo ee gobollada waqooyi weeye nin saaxiibkaya Sheekh Maxamed Iimaan la dhihi jiray yaa sideetanaadkii waxaa naloo diray rag badan annagu waa qaahir aniga isagaa israacna haddee labada nin hadday wada socdaan wixii cusubba istusaan oo sheekaystaan markaan dhaqaaqna waa iga harhaya markaan u soo haro iraah soo gaarana waa sii haraasna maalinkii dambe wuxuu yidhi khaliifow haddaad dheeraysan kaa hari maayo haddaad gaabisana ku soo gaari maayo iska socon waxaan ka wadaa Hargeysoy haddaad dheeraataan kaa hari mayno haddaad soo dhawaad haddaad gaabisana ku soo gaari mayno sababtu maxay tahay balaayaa nagu dhegan lugahaana la haystaa qaarka dambaana lagu dhegay inaad soo gurmanaysaan moogi haddaan wax kala weyno haddaba waa idinla degan yihiin dadkii koonfureed oo idinku soo baxay oo walaalihiin ahayo guryahoodii bayna joogaan oo dareen ma qabaan oo weliba waxaan la soconnaa muddo markii la joogo in la yidhaha waryaada warraba maxaad ku sugan tihiin qayb unbaan soo dirayna mar walba waxaan leenahay dabagala ha ka harina maalinka dambe ayadaa laysu imaan doonaa waxaa ii soo haray Puntland waxa weeye 10 iyo hordhodho bay jirtaa waxbaa u qabsoomay waxbay dhisatay waa ku faraxsannahay waxayna leedahay ku dayashay leedahay lagu dayday leedahay marka Puntland ha iga raalli ahaato muxuu ahaa faroolaan fartiin u fari lahaa fartiintaas Puntland uma socotee faroolay shaksi ku tahay xalay baan dhegaysanayay sheekadii meesha ka dhacday waxyaalo badan oo gobolka mudug iyo naqayla iyo wax laga maqlahayo waaga marka waxaan leeyahay faroola waxaan leeyahay muxuu ahaa mahmahyadii waxaad qabsanaysa haddeer aan lahaa haddaad daandaansi badan tahay aniguna aan dulqaad yaraysee ku heshiinayna ereyga faroole markaan leeyahay macno weyn buu ii leeyahay faroole magacaan sinjigiisa ogahay weeye markaan ugu yeeraayo xushmadii ugu weynayd baan ugu yeerayo waxaa la rabaa dadka in laysu soo jiido ee dadka laga daayo colaadda iyo warka aan qalmin iyo majaajilaan muxuu ahaa meesha ku haynaa iyo waa isu imaanaynaa isma qabtaan wixii xalay aan maqlayo kale Soomaaliya ma kala tegayso waana laysu imaanaya shariifka waxaan leeyahay shariifow nin alle yar baa tahay hoggaankii dalkana maanta magaciisii iyo maamuuskiisii adaa haya waxaan ugu soo koobayaa waa la doogsanayaa la dacroon waxaa ii soo haray markii hadda bulhaankii iyo muxuu ahaa gabdhihii meeshaan istaageen galmudug kaliya uma jeedine saas markaa yidhi ilaa balcad baa ii muuqanaysay gabdhaha dhexdooda iiga muuqanaysay fadhiga ha laga kaco ha la ismileeyo gobolladii waa laga haray waddooyinkaas lama mari karo dhibaataa ka jirta odayaasha meesha jooga oo muqaawilo waaweyn oo muxuu ahaa meesha fadhiyoon leeyahay waxbay ka galaan arrintaas inta laga kaco si loo soo koobo intaasoo gobol markay isku daranto xaggana intii kale isku daray isu imaadkii baa fududaanaya fadhiga ha laga kaco waxa la qabsado waxaan idiin sheegayaa dagaalka gobolnimadaanku meeluu ka fudud yahay baan idin xasuusinaya raadiyaasha waxaan ka maqlaa
دستور فيدرال كل فتنة عدة جيل دستور هو واحد قريبا يا سومالي نيجي سومالي ودلك وحروفك اليوم دلك قيمين اليوم دولة يا سومالي بدودو إنه إلى ليدريه الدستور بحيو أسنبنو يسكوك السودان معناه هو قانون كأساسي الدولة بلاد وقانون كالسكر بما ونقول يوم مركب وحال الربا وحال الله أساسي لبد السجع سلوا بسوا يدو قوانين تكرار الوجود السجع هو كالسارة أنتو سارة الجنسية وحال قلب كم من الجنسية وحال كجرة وحال صومالي قفك جمهورية الصومال قرة حي هذا الكاوفير سنة يوم فضيل المبارك وحا صومالي قفك جمهورية الصومال قرة هذا الصومالي ولا لا مبدأ صومالي أي دستور كذا كقرصة واللي يرى مبدأ ديك معي جاي معلوم وحا صومالي قفك هو يليس يا أبيس سوماليه أما لا بد تكون سوماليا وقدر لي المجال مرة قارب واللي السوق جاي ولا قد عشان ملايين أما بتكون كمان على نيك كمان ويل كأي شيء أما كمان أي شيء هاي السومالية كلها محل لوريجي ديجا waxaa loola jeedaa waxaad iska fogeynaysaa dadka dadooba islaameed inaysan hoosta kuu joogin yaad iska fogeynaysaa dadkaad iska fogeynaysaa cadowga oo kuu soo dhuumanaya wax yar baa lagu dhigaa dastuurka qaanuun gaara yaa sida lagu helo sheega ayaa la yiraa ee meesha lama dhoolo marka waxa weeye Soomaaliya 2 milyan oo qof oo ajnabi ah ku jirta maanta ku jirta marka lagu dhawaaqo qofkaas uu noqday dadkii ku dhashay waxaa la leeyahay qofkaas Soomaali marka sarooyinka dibcidda Soomaaliya ogaan doona waa la idinfoo ya salaam nabadooshino iyo madaxda kale oo dhan inta kadib haddii aan tixraaco fikradda haddeer socota ee dhahaysa ku dhashay waxaan ku dhashay Muqdisho waxaan u dhashay Galmudug soomaaliduna waxay tiraahdaa 20 jir mudug Allah uma xil qaray farxad weyn ay tahayna asal ahaan ka soo jeedo Galmudug oo ugu dhashay madaxdii Soomaaliya soo martay ninkii ugu islaamsanaa ugu Soomaalisanaa ugu daacadsanaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ugu dhashay saraakiishii Soomaaliya soo martay kii ugu islaamsanaa Jeneraal Daawud Cabdullaahis Galmudug waxay Soomaaliya u soo dhigeen oo ay miiska u soo saareen madaxdii qaranka kuwii ugu muctarifsanaa Xuseen Kulmiye Afrax محمد أبشر موسى محمد أبشر همان تليه البوليس مدحوينه اللي هو عبد الرشيد علي شرباكه وعن سوينا ما أنت قل مدوينه بيس والنقطة قرن بدي ومد الصومالية كم سجال بقول أفرتني يا سجالكي وحي صور رعي سدح من أو قل مدو كتسر وحي سوق هذا العالم الصومالي سدح لوحي هايان عبد الله عيسى محمود حاج فارع علي عمر محمد أحمد أوتافيو محمد أحمد علمي أوتافيو اللي يلي طلياني يمادين باريس أي دون كوي مادين لندن يباريس دون كلي كوي مادين إلا نيويورك دون يسيسار على Soomaaliya waxay horgeeyeen UN tayidii ay sureen calanka Soomaaliya waxaan maanta sugaynaa Galmudug
jidkooda inay marto 60 sano kadib oo ay bays u noqoto qarannimada Soomaaliyeed saad ogtihiin ummad waxaa jiheeyo hoggaanka waxaan maanta ka sugaynaa Maxamed Axmed Caalin inuu maro jidkii ay raggaasu mareen sidaad arkayseen shirarkii ka dhacay Soomaaliya gudaheeda kuwii ka socday Garowe kuwii ka dhacay London Caalin wuxuu matalayay ummadda ku nool Gaalkacyo ilaa iyo Gaaris kuwii kale shirka la joogay waxay matalayeen qabiilo iyo qabaa'ilad waxaan rabnaa Caalin inuu arrintaas sii xoojiyo ee uu noqdo madaxweynaha min loo yacdo ilaa iyo Raas Kambooni waxaan idinku gudbinayaa dhammaantiin inaad ayidaan soo dhowaysaan meesha aanu ka ambaqaano Soomaalinimadii waa maasintii
Quiero